نسوا فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. مناسبة oo ay ku qalin jibinayeen 21 arday oo dhameysatay barashada xifdinta Qur'aanka Kariimka ee madrasada Al-Huda oo ay ka soo qayb galeen waalidiin, macallimiin, culimo u diin, ardayda qalin jibinaysa iyo marti sharaf kale ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah waalidiinta ayaa u mahad celiyay macallimiinta iyo maamulka madrasada Al-Huda heerkan ay soo gaarsiiyeen ardayda Soomaaliyeed. marka waalidka waxaa saaran waajib weyn oo umarkiisa inuu ka warhaayo ay tahay, inuu toosiyo ay tahay, inuu tarbiyeeyo ay tahay. runtii waalidka anaga alxamdulilah carruurta waa wax horta nicmo ilaahana siiye weeye oo maanta dad badan aan haysan, laakiin carruurta inaad dhasho keliya micno ma samaynayso. waxaa muhiim ah cunugii adiga aad dhashay inaad ka warhayso oo aad la socoto. marka ardaydan waxaan u rajaynaynaa inay maanta ay dadaalka ku bixiyeen ayagana dadaalka inay sii laban wiilal iyo gabdhaba si loo helo ummad mujtamac islaama oo ka dhisan xagga diinta. Macallin Cabdullaahi Cismaan Cali oo ka mid ah macallimiinta madrasada Al-Huda ayaa ka hadlay fadliga uu leeyahay barashada xifdinta Qur'aanka Kariimka. waxaa ugu mahadcelinayaa macallimiintii halkan ay joogeen oo meeshan oo masaajidkan ee madrasadan ay ka baxdoon oo noloshoodii oo diinta Ilaahay oo dadka Ilaahay ay kusugu yihiin diyaarintii ay diyaariyeen oo xafladan oo qiimaha badan oo sharafta badan ayagana waxaa idin leeyahay si gaar ah habaya idin leeyahay. maamulaha madrasada Macallin Cabdi Cadow ayaa kula dardaarmay ardayda dhameysatay xifdinta Qur'aanka Kariimka inay sii wataan barashada diinta Islaamka. waxaan leeyahay kalaamka Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa carabkiina ku dhammayseen, carabkiina Ilaahay khayrka ha waafajiyo. waxaan kaloo u mahadcelinaynaa ama xambarin u diraya macallimiintii ardadaas soo haysay ee soo bartay ilaa alif waxmale ilaa fansurna cala alqawmi alkaafiriina usoo sabray, usoo dadaalay, usoo daalay. ayagana waxaan leeyahay juhdigiina iyo dadaalkiina berihiisa waan u jeednaa, waa idin hambaliyeynaynaa ajal xasanada Allah idin ka siiyo. muddooyinkii u dambeeyay ayaa waxaa soo kordhayay ardayda ka soo qalin bedelanaysa dugsiyada Qur'aanka Kariimka ee ku yaala gobolkan Banaadir. Muuse Cismaan Abtow, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.